بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يجي لها سومالوين ميل بدوية كجوكتان وين صور هذا إن شاء الله برنامج بانك هذا يعني لقى حظه مضن وحوي صرفتك أنت يعني كهذا عيب يعني واحد يرتل بابنا وحاس كيسين دري مركا تميل بدن بكرة عضيه وأرن مقارنة ساير نقطة ميت صور نقطة نورويين حاس كيسين مضرب لا دعيب المقلين السيف برد حاس وفوقي إنجليز أنتي كورونا بلوغي ساعة نبى يسوون حاس كيسين دلي جرمالك يا مكان ونيو جرمالك ما هوين كاكوير كل هوين كاكوير نوالا يراها رجع فرح كبتونات ببدي كرم يقول لك إني مكلي شيء إنه حاس كيسين دلي أيوه كقرأ تربي قال I love you so much أنا ديمته ما هي بكرة لا إيمانك كقاط هذا جعش ما حد يدش مريكن كنا نقابل علم بضم أنتوا وسندرين بهوس قاضي وحيري اسمه أورن أحد بعد الحيس تاجي اسمه أورن سنين بقى الله وساقبا أراد خو سلام يا ولد مركب برنامج كاسين إن شاء الله فلنقينا إنه يطرح بحيرنا إنه يحاس جود الدنيا يهويني ده جود الدنيا محاسبة بي way batteena maxaa sababay argagax baa haweenku ku dhacay inay yaro aan arkay wax guurka iyo xaaladiisa iyo nidaamka ka war markaas tii ma didisha ablaa ku dishay ku dilmeeyay ma rag la isku halayn karo tir kawdi marka haweenayda argagax bay qaadeen nin dhalinyarada waxaan ku maxay guursaday markaas suri leey gubaan ka baqaya marka sasbaa bilowday sasbaa guurkii ka bilowday anu rag waxay rag asaska qaban ku jiraa كودي أنا جينا سبب على جوا يدينا سبب عن جوا مركها أرين كاسين إن شاء الله فلانقين إننا مصيبة على دعيس يدلك على فضل السنة يد روماتيكي صو جينا تقف واحد نقل جريب شعيل بكل كلمة تلي يكل قاعد يحب على تجاس ومالي دي من دي أيه أو حسنا جين من دي توري أول شيء كده واحد هيت غيري عنان علادي عدو إلا سؤال كودت كيس على مر والبا أسكو قيليا إيه كلاكي ولا توري بالصدايا برامج كشرقرية دتك ديلك نيستين داود السنة مركا وسؤال سويدين مدن محا سببي إنه نينكو دلو حاس كيسة محا سببي إنه نين قبل وجعليه هي والدنيا ذا كعل مضي إيه وقشانتي إيه وقرب يوم قرنا يساي جد قرنا يساي وجوجل فريستي قعدة يدي بعطي إنه دلو محا سببي تاسر فنقين لا داود دي شيء وماذا واحد سببي أرنكا حارانته tii gabar ahayd markii ay guursanayso walaal tii gabar ahayd markii ay guursanayso nina kan sida loo koriyay meesha uu ku koray waxa uu ku barbaaray iyo risaaqadii la soo siiyay xaaladiisa dhaqankiisa jiritaankiisa caafimaadkiisa inuu xalaal yahay inuu ibn al-xaraan yahay intaba ma oga Soomaalida xaraanka waxa uu arkaan nina kan in uu ma garanaysaa ay xaraan ku dhasho oo xaraanta u haysta warnina kan in risaaqad xaaraan la siiyay waxaanimada ka mid tahay abi aju tuugay oo siyaasi ahaa inta masaakiin xoolahooda cunayay oo hooyadii islaamo badan ay ayuutulug iyo gacan isugu jira ama hagbad ku goysay kawdi oo allo aadan beerki beelina habarta iyo odag maalin walba istigaali jireen haaska iyo odag markay maalin walba istigaali jireen oo isna calada jireen tacarur noocay dhalanaya halka waxa ka dhalanaya carurba ay oo balanbalay oo reerba oo yaa idan leh huul oran jira ba dhalanaya kawde carurtaas hadhoodii kolka ay gabar ay weynaada oo ay guur ku soo doontaan hadaa tiraahdo aqbal iyo guddoon maxaad filaysaa marka waa lagu dilaya adigana godkaagii baa biyo kuugu gala marka walaal inuu guurkii xumaado waxa keentay imika inankii iyo gabadhii guursanay hebel baa guursaday baa guursanayaan hebel baa guursaday heblaayaa la guursaday alla aroos sidan bay dhigatay alla ilmay sawirkiisa soo dhigtay oo way dhashay naa waxa kan waxay dhashay maxaa ku dhex jira waa la guursaday maxaa ku dhex jira wuu guursaday maxaa ku dhex jira background-gooda iyo noloshooda iyo aayahooda iyo waxay ahaayeen iyo waxay soo jireen qaban jireen ma ogaatay أنا اليوم أقول لها والي دري تبحال وودي لو مركز إن بهالجورستو أبي توجها هو يدي أبي يسدل جرين إنك هو يدي أبي ما له بس فران تستس كل ده لأن هي الصبح يعون هذا يكن ين على طبق شيء وحاجة سيران عنو قاسم كدينه يا أديك
ninka hooyadii aabihii dili jiray ee ku koray in hooyadii la caayo ee ku koray in hooyadii la nacalado ya maxaad adiguna ka dhaxlaysaa bay kula tahay baaluul baad dhex gashay iyo reer ba'ay adiguna de sidii unba teesta lagaala daalaya karimayo hadal macaan karimayo naxariis karimayo erey dabacsan karimayo walaalay sababtoo ah hooyadiisba lama oran jirin ninaan hooyadii erey macaan la oran jirin marka oo aabihii wuxuu shahaa ama hooyadii ay bilaa naxariis ahayd oo dabcigu ka xumaa oo diintu ka xumayd kolka aad tiraa guur baan kaa doonaya oo guurkaaguna uu yahay ayaamaan kula sheekaysanaya waad ii qalanta labiskaagaan ka helay heestii barbar baanu isla qaadnay heestii wadnaha dhaglee baanu isla qaaday waad ugu beegan tahay oo waxbaan kuu sidaa kuula ordaya oo ninka kan waalay sanadkii maalin ay qadayn jireen hooyadii xanuunsanayd aabihii qof soo dilay dawlad lagu dilayaa kolkaasuu intuu darbiga kugu qoraa ay loo fiyo hadhoodina kaa tegaya ma fahad marka walaal dadka kan Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin qaab nafsiyana in loola dardaarmo qaab nafsiyana in loo ogaado kuwii dalkii ka yimid dhibaato haysata waxay ku koreen qax waxay ku koreen qaylo waxay ku koreen qabyaalad wax qaar baa soo tahriibay oo maskaxdooda doon soo dhacday dhibaato iyo magaranaysaa ay magafa dilay ay wali ka gooxaysa oo habeenkii markay seexdaan 9 jeer soo kacay acuud billahi ma shaytaan inuu leeyahay Greek mariyo soo haysta hadda ma joogo cunug agoon aan waxba dhimin oo wadankii ka yimi oo alla adibarka beelle aabihii isagoo arkaya lagu hortilay ma fahad naag waagi qaxi iyo colaadihii iyadoo aan waxba geysanoo inan yara la soo kufsaday caruurahay dhaleen dib bay ku koreen marka dadkaas intaasoo marxaladood oo dhibaato ah ku jira oo aan cidi ka wargurin oo aan caafimaad ahaan loo wareysan oo aan eebal loo baryin oo aan la qoraan saarin kolka tirada guur baa ka doonaya oo ninka habeenkii markuu seexdo 9 mawjado dhinacan ka saarayo BBC London ugu horeyso halkan 9 kale oo ka saarayo dee wuu ku dilayaa marka waxa weeye guur xumada keentay dilakan degdega keenay dilakan ma fahad dad kan depression baa wada haya stress baa wada haya cidda weysana ma jirto doctor xabib wada baahay cidda weysa ma jirto doctor xabib waxa arkay in 20 jira bise wala afla tajib waa oo saddex naagood qaba xagga u digay saddex naagood buu qaba isaga iyo saddexdaba cayrtay wada gurtaa naftiiba ii keenay buu kuleeyay kuwa qisa ka yaala sanan kuwa markaas uu xaasaska oo maxaa jira ma joogayaan eedan ku joogayaan markaa teesay ku joogaan baan ku walaal saddexaad waxba waxba soo xariisatay adiga wali doontay gawdi xaaladaas iyo noloshaas su'aab bay dhaxlaysaa marka waxa weeye iimaankii baan dadkii ka tagay ilaahu iimaanka ka qaadin walaal iimaanka haduu ka tago waxa weeye wada haatay dadkii xaaraantii baa loo bareeray alla ka cabsigii baa yaraaday ceebtii baa la caadaystay taasuna waxa keentay walaal imika social media marka soo gasho waxaad arkaysaa hawlo badatay oo Soomaaliyeed oo quruxdoodii iyo hanaankooda aad yaabayso sidaa kuwa kan waa kuwii boqolka geela laga bixin jiray waxa ay ku hadlayaan iyo ficilada ay muujinayaan magaca Ilaahay badan habeen u daawateen oo habeen ugu hooyateen oo habeen xaas uga dhigateen maxaa keenay dadka qalbigii baa wuxuu ka tagay alla ka cabsigii dhaqankiina waa laga tagay diintiina waa laga tagay dadku marka waxa weeye raxmaanku ay noo sakhiray rag iyo dumar la isma dhaamo berta lagu wada jira gawdi mid kale tan arakan fariin marinaya aniga runta lagu yimaada run iyo ilkaba waa la cadaya hablaha social media ay soo dhiga oo isqaawiya aanan qabin isku dedejiya hadba ku salaamay mawlidiisna midaan gacal iyo guur wali u niyeysan oo Google fariisan soo bandhiga ay yiraahdo tan waa gacalisadeedii ama sawir la soo gala dawalana ku qabin ama iyadoo aan la guursan isa soo qaawiso oo public isa soo dhigta hadaad ku waatay barnaamijkii hadalka kan walaal uu anfacaya ama dhibso ama ha dhibsan anigu waxaan ku sheegaya wax ku intifaaca walaal gabadhay marka
deemanka uu iibkay ama la doonayo oo suuqa la soo dhigo ee uu bayc yahay waxa weeye waa loo dhibtoodaa waa la doonaa waa loo dhididaa waqti baa la geliyaa kolkaasaa la soo qaadaa waana la hagaajiyaa kolka la hagaajiyo miiskaa la saara kolkaasaa qiimihiisa laga hadlaa iyo waxa uu muday mid walba marka deemankii gacanta lama galo nin walba uu arkay wuxuu ma sha Allah rag baa u soo dhididay qarash baa ku baxay gawdhi gabaray markaa deemanka nin baa gadanaya ama gabar ama wixii ay haato waa la gadanaya deemankii marka la gato dee walaal la leeyahay qof walba ma xiran karo shakhsigii mudnaa baa wixii ma garanaysaa la oranaya ma sha Allah hebel deeman buu wataayo deemankiisa ma arag marka hadalka iyo nuxurka iyo naxwaha hadalkaygu waxa weeye marka adiga oo lagu soo barbaariyay oo lagu koriyay oo aad aabba leedahay oo aad walaal leedahay oo aad hooyo leedahay oo walaal lagu tacbay oo lagu ma garanaysaa soo jeeday oo lagu barbaariyay oo lagu yiri adiga baxsan oo gabaray bidaan qurxoon adiga wax maamula marka la fiiriyo haweenka Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed de haweenka la ixtiraama waalidku ilmaha markuu yar yahay inanka yarka waxba loo dhiibi maayo oo adeeg doon la oran maayo oo waa hayraan oday ku shilin haduu siiyo burasid hadii kale oranaya tag baa la oranaya gabadhu laakiin lix jir markay tahay walaal way soo adeegaysaa bilkiiba adag u dhiibaya islaantiina bilku u dhiibaysa wax walba ay taqaan maxaa keenaya hanaqaadnimada iyo daryeelka iyo inta in kor loo qaado qiimaha ayaa keenaya ay leeyihiin barbaarinta iyo wanaagga ay waalidku la jecel yihiin ayaa keenaya marka walaal adigoo sidan lagu soo barbaariyay oo waalidkii qarash ku galiyay oo qiimo agtiisii kale oo walaalkaa ku jecel yahay oo la leeyahay gabadhayada kolkii la soo dooro gacal iyo gabaati iyo gogol loo fariisto oo wax weyn laga sugay markaad public soo dhigto oo naasahaagii muuqda oo futadaadii muuqato oo aad hadal xun tahay oo nin arabka kuulayo hadalkiisu deelqaaf mooyee darajo aan lahayn aad hadalkiisii rumaysato tayaa ku guursanay mad injayna tahay dhowdii mad injayna tahay anigu gabar meelaha isu soo dhigta guursan mayo ma ka dhigan mayo de waxaygu waa la sii arkay moolidan saaxiibanahay wuxuu oranaya hadhowdii yaasiino walaal xabadkan halkii buu oranaya maxamadka dees waadan arkayn sawir hadda ka hor soo dhigtay de maxaad ii qarisay marka walaal aniga marka aad wajigaagii iyo jirkaagii iyo xubnahaagii halkaas soo dhigtay aniga bari maxaa ii qarsoon maxaan geel ka bixiyaa maxaan qiimeeyaa maxaan qadariyaa maxaan kugu doortaa waa la dhimanayaa marka walaal isu soo dhig adoo asturan gabar baa ceeb ma laakiin adigoo dayacan oo dadku dhaleen oo kaaga daranta magacii aabaha wata ina hebel bay ku leedahay hoogta aabaha muxuu ciil qabaa gawdhe marka waxa leeyahay war dhaqankii baa xumaaday wanahay dhagla baan ku leedahay daaya hoosta kaa gasha oo hus lagu yiri magaca ilaahay alla ni oo gabdhaha waagii hore sida ay u soo jireen marba marka ka dambeysay imika xishoodkii baa tagay mid waxa arkaysaa goongaradii halkaa geysay lugtoo dhani banaantay oo yaa waxa kan bari sugay yaa waxa kan bari daawanaya yaa daryeel ka doonaya midda kale miyaadan aabba lahayn miyaadan walaal lahayn meeda hooyada ma xishootoy taas waa kow ninka ay soo haray ninka oranaya ragga hablaha beegsada ay yiraa abaay soo shidan in soo dirno hooyada sawirkeeda u diro shidan hooyada keeda oo shidan dir adigu miyaa diri kartaa abaay oo kulul hay buu qabooji tabayatana sawir hatta diisa wata in soo dir kan walaasha dir kan walaasha oo xatoonaysa dir wax aadan walaasha u quuray oo hooyada u quuray
sidee baad qof kaleeto walaashii iyo hooyadii ugu qortay gabartan guurso u gogol fadhiiso xaas ka dhigo dee markaas waa macdanaad leeday ama iyadoo foorinaysa ha kuu soo dirto ama iyadoo fadhida ha kuu soo dirto laakiin qoftii aadan geel iyo gabaati ka bixin oodan u gogol fadhiisan oo nin tacab iyo qarash gashaday oo koriyey oo hooyo tacab iyo qarash dhashay oo gorisa ii soo dir dee walaal yaa kaa qaadanaya anugu saas uun baan social media imika u eegaa waan daawadaa acuudu billaahi oo naagatan maxaa u qarsoon baan dhinaa yaahu lagu yiri sida tanaad mid kala sii idhaahdaa aragiisa kaan yaahu bilaahi hoosaga mid kale uma soo sii wadaa aragaygiiyo qunucdaada bil sii wad maxaad ba shukansataaba waaru yaa aliya la yoodi nabi maxamed marka waxa weeye waaryaara gabdho is astura anuu ficilka ragga iyo fiirada raggaan idiin sheegaya nin walba wuxuu jecel yahay gabar astura marka hore plan A buu kaa dhiganaya wuu ku jiidjiidaya gawdhe plan A buu kaa dhiganaya wuu ku jiidjiidaya dabeeto kolkaa daasho oo duruuf badani kaa muuqato oo aad dacas u ekaato kaa tegaya tii ku habbooneed buu aadaya plan B-ga lama taaban waa fariid adigana mishiin lagu socday baa lagaa soo dhigay marka walaal maxaa plan A kaa dhigaya baleenka runta aan noqon dad baa ku dhalay dad mideeda kale alafkaaga sug waa niyo tan gabadha ugu dar ee sawir wax ku doonaysa alafkaaga sug ilaahay wuxuu kuu qoray oo wanaagsan oo kuu qalma waayimayso laakiin walaal kub waxa ku dooni kaduudiya kugu dhaciyo kub waxa ku dooni sawir baa wax ku doonaysaa ilaa baan ku dhaartay naag aan public social media ku arkay oo iyadoo isa soo dhigaysa aan arkay weligay ma damcan ma aaminaysa way kala yihiin qaar asturan ku dambaabi maayo xijaabka iyo sunnuhu wanaag asturaadu ka muuqato kuwa ku dambaabi laakiin awqaawanay waa daawadaa xaggan ka fiiriyaa balaayo hoosta kaa gashay intaan lahan kasii tagaa marka walaal adigoo lagu ducayn karo oo qof walba carabkaaga uu hadal wanaagsan kuu soo marin karo orayo alla gabartan waa fariid sunni diin baa ka muuqata maasha allah gabadh waxay istaaheshaa wax rag loo doono oo nin lagu darsado gawdhe sharafteydii baa soo gashay ilaahay daayo walaashii aan jeclahay ismiid ilaaha ku barakeeye marka waxa weeye ablo is astura man sharafa nafsuhu fa huwa shariif aniga waxa weeye ilaahay daayo horta laba gabdhood baa i dhashay midna waa sabi iyo waa saqiir oo way yartay midna wataa halkaa iminka iga soo salaantay waa marwi wallahi inaan xaragoodo oo faano oo waxa sababahaas iska lehde walaashay baa ka mid ah sababta marka ay walaashaatay ahlu sharaf asturan oo dhaqan iyo maadi iyo diin iyo barbaarin waalid oo qurxoon ay ka muuqato macnaha waad hanqal taagaysa waxaad leedahay laakiin marka ay tahay dayacan damiir lahayn oo isu soo dhigta ah ala daawanaya oo laga tegay hadhowdina waxa weeye hebel walaashiis wey marka waxa weeye walaashay iyo walaaladeenba haweenkeennaba ilaahay haynoo daayo iyo haweenka Soomaaliyeed meel dunida joogaanba waan ka sii tagayaa barnaamijka nuxurkiisa aan u soo galo waxa haweeneyda Soomaaliyeed ee la dilayo dilkii baa batay waan idin guud maraya hadalkii tilmaantiisa walaal dilkii baa batay ingiriiska nin baxaaskiisa dilay kolka la sii baarayna cilmi nafsigu uu wareersanaa odaygu wuu daalanaa wuu xanuunsanaa Norway mid baa seef la dhacay sabab baa keentay maraykanka ninkii la doonayay isma oran ahad sadaal taagi isma oran kii lahaa inaagta intuu dila cararayay maalinta ka dambeysay magaalada leena ku sheegay mission impossible ba weyn oogay maashi jarmalka ahayd nin baa intuu naagtiisii dilay darbiga wuxuu ku qoray I love you balaayo ku aragtay horta jarmalka dumarka ku yar baa la yiraahdaa dumar loo sheego waar Sweden soo qax meesha Sweden noloshay ma maqal gabar baa lagu dilay sababtana waxaan is iray
dee markay ninka mid madaxa ka gasho 2 milyan oo gabdhood baa jooga waddankeeni way yartahay soo in la yiraahdo xaaskiisii buu dilay dumarkaa wax gubaa Sweden waa ceelasha biya dukaamadaas aad hor istaagaysaa 900 baa ku soo hormaraya oo wada caano doonay maad baa tijaabo gowdhe laakiin meelaha kale haweenku way ku yareen baan isniyo mise waa qaali oo lacag badan bay sheegtaa oo dhowdin raggii madax ka galaano raggii wax dhaan inta san ka bixiyo ku deyn maayo waxa haataba haween dil ma mudna laakiin waxa leeyahay ama shaad aadayso iyo gurigaad u socotay iyo halkaad u gogol dooranayso iska ogow ninka waxa laga yaabaa walaal inuu ku soo koray guri islaameed imruhu baa laga yaabaa waxa laga inuu guri islaameed ku soo koray xaraan baa lagu soo kariyay waa ku dilayaa islaamkii baa ka dhex guuxaya ninka waxa laga yaabaa aabihii inuu hooyadii dili jiray oo uu rabo ficilkii iyo fiiradii oo aabihii ka soo bartay ha tis hooyada baa sida la oran jiray anna aan ku iraahdo waa wax dhici kara ma fahanta ninka waxa laga yaabaa inaadan u qalmin oo quruxdaada iyo dhaqankaaga iyo dabcigaaga iyo diintaada ma sha Allah inaad tahay isleeyahay matanaad heshay ma heli kartaa si aysan nin kale tuu aan jilay gawdi marka barta ninka barta oo dhaqankiisa barta oo diintiisa barta oo dabcigiisa barta oo backgroundkiisa iyo meeshuu ka yimid barta oo doona inta aydan guursan wixii dhalay sidii u soo koray sidii loo barbaariyay qoyskiisu sidii ahaayeen aragtidiisa iyo higsigiisa iyo hamgiisa barta arees bay tagaysaa cabaayad yar bay soo gadanaysaa lacag ayuu ta ku heshaa arooskaas mid suud xiran ku arkaysaa alla wuu shiday iyo hadhow tooreyba agtaa toqon baa taado Facebook-gaas soo dhigaya way iska aaminaysaa alla wuu shiday iyo madar baagiya hawayaan baa taado ninka kan balbaro naf baad ku aaminaysaa nafna wax yar iyo wax fudud iyo wax sahlan maaha ma fahad dal inta aad isleedahay adduunkii ha ka tagin heblaaya dhashay adiguna dal inta aad isleedahay ayaan lagu dilin u fiirsada guurka marka u fiirsada dadka kan 30 sano is cunayeen 30 sano xaraan la cunayay 30 sano la isdilayay 30 sano la wareersanaa ha iska aadi ayo ku aragtana ku oran kara iska aadina waxa iska hubi marka waxa weeye raxmadda ee baan noo baryaya war waxaan idin kula dardaarmaya ragow waxaad guursanaysan iska hubiya aniga suuintaas aad ila tagtay iska hubi sidaan isul ahaa waka asti wataad sante dhaqaajiya dheesanta ee dhamaystira ninka inta qaadayo aniga gowde illa ka riixaya illa saan isul ahaa war eruudi dabcigeedu wacay diinteedu sareyso oo aad dulqaad badan oo darajeysan oo dhaqankii abkeed iyo ayaydeed آخر كتوب إنا نقول عم كبريا إلاو ناصر كودي ورقة واحد ولا رجع عطوا سعتان يوحد جورسنا إنسان إسكهوبية قبله إسكهورية ويلو إسكهوبية ما فهم واحد جورسنا يسوع وواحد دلي دونتو كمان إنك هاد جورسنا يسوع وين ولا شاد دلي دونتو يقول قبل تقول سنة سوى الله شاء الله لدونته هذا دقن يدين يدبع يد القاد يدرج اللاضي يعني مع مال كوطها لكن لو أي هاي مصيبة الله صوتري أنا بلا أنا وين رئيسا أذوق نكون بتبادي مش أذوق نينو هني سيد حسين لمدة طب برايات بس واحد على سنة سيال بقول لك كنت الاسترسكوف لي هاي كيشن ورجعوا حتى بلاي ذا واحد بانو عيد مدينة دقنا بك قاعدة لكن واحد كنت فوق دبد الدرده waxa weey xumaanta iyo dayaca ka qaada baasha waxa weey waa Soomaaliyeed oo dilka isku qafilay marka waxa weey waxaan eebahay banana amal fiican iyo wax wanaagsan ma keentay waxaan ka hadlayo oo nuxurka iyo sheekada waxaan ku soo galay ay tahay meesha aad u qalab qaadanayso gabadhay u fiirso
واتن كلا أنا سليه ديل كوي كهتا ناك نمسول لجيسي نبي سول لجيسي مسكينة العقب بيكسر عنطي حبيبي أو عدة حنوصة ضغطة $100 يصادر مسكين تراك سهرنا يودالنا $100 يصادر يا ها كل عيا وركتها marka miskiinkii lacagtiisa cuntaa dhowdi nin u dirto kaleeto ma dhacay ninkii hadii ay ka tagto kii ay u tagay saxaaraantii wixii ba ka soo ifiyo bari u dilaya ma fahad nina kan miskiinka ah lu goynayso lugooyada ka daa hadaa doonayso nin wanaagsan aad hasho wiil wadna gabadha ta miskiinta aad lu goynayso lugooyada ka daa hadaa doonayso inaad gabadh wanaagsan hasho laakiin marka aad wax lu goyso marka aad wax dulinimo la doonto dawaal ugu dilaya binaadamka marka qalbigiisa disho adiga jirkaaga la dilaya marka qowlka Aabaha iyo qowlkii rasuulka ay dhowri weydo oo wax ku wal hadalkaagu noqon waayo de muuqaaguna wax ku wal noqomayo marka waxa weeye war Ilaahay ma loo noqonaya taas aan xurkiyeen macada agtiisu taalaay raxmaan isagana agtiisa lagu badbaadiyay adduunyada 21 century baa lagu jiraa bay ku leeyihiin 21 century inaga dadkii baynu dileynaa waan ka soo tagnayo xaafadihii bay soo gashay awal waxay ahayd banaanada dariska dadka masaakiinta Soomaalida kale qurunka iyo qabyaalad imikana qoyska ka bilaabatay waxa keenaya amalkii xuma iyo cibaadadii iyo raxmadii ee laga tagay marka waxa weeye nuxurka hadalku wixii walaal meesha aad u qalab qaadanayso iyo taad xaas iyo xila ka dhiganayso iska ogow ama hooyadeed soo baro inay islaantu tahay islaan ayuuto badan la xaday oo islaamo badan oo masaakiina wax ka goosatay inuu aabaheed tuug yahay inuu aabihiis tuug yahay inuu hooyadiis tuuga tahay soo baro inay munaafiqad dadka isku dirta tahay iyo inay islahayn soo baro inta markaad xaqiiqsato oo aad tiraahdo Allah ileetan waa kaala arag dhan walbana ka siraadan loona dhawaan karo xalaal badan ku maqan tahay xusmo mudan xalaalayso adiguna gabadhay sidoo kale marka waxa weeye hal ay subsado hal la ogaado waxa la doonayo barnaamijkana waa ka sii baxaya intii naasu hal mar sheer gareeya ilaa wad soo horfadhidaana kuwa kale to aan soo horfadhiin hadalku ha gaari sheer gareeya gacantu idin ma go'day isla hal mar nabigana lagu saliyo أنت لما هل لأن يحسديس هو مهم يلا حسوسته كسر النبي كان هل مرة صار النبي يودنا يلا صقر اللهم صل على سيدنا محمد أو دن حدين عن حسد الله كشكين هذا الكي كوكب جبين إنه خير يلا المايه قفل بو النبي كسر لي يا بحي وحن كبر يا إنه كتس جنة ونوش في عقاد ما نتخيل اللهم صل على سيدنا محمد وصل لي دونك waxaan ugu jeclahay saniga nabiga inaan qoraalkiisa arko ama aan maqlo ku saliya nabiga loofna raaciyada saati اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد إذا كان أجر بعد يشغلني أنا أجر ما شغل سنة ما شاء الله بنادم باله يد القاف يقف هذا هو مهري كرو مركا وحوي يتحسن بحي wixii gaf dambiyoona ka dhacay dambi dhaafkeeda hayno ka dhigo barnaamijkan hal mar la sii sheer gareeyo hal la wadaaga kuwa guurka ka baqaya faa'iido iyo fikir fiican bay u tii gawdhe war wixii wax khayr doonay wax khayr ilaahay hasi ilaahay dadkeena waxa weeye dulmiga iyo dayaca iyo daryeel xumada meel walba ay la joogaan dal iyo dibad ha ka saar gawdha aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh si aad ugu xirnaato taabo subscribe